السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، اتقوا الله ربكم وراقبوه في السر والعلانية كما أمركم بذلك في كتابه الكريم، حيث قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها المسلمون عباد الله، إلهي سبحانه وتعالى wuxuu inoo soo dejiyey kitaab uu u soo dejiyo addoomihiisa kitaabkii u dambeeyey aakhiru lkutub. wuxuu inoo soo diray rusushii iyo ambiyadii ilaahay subxaana wa tacaala uu soo diray kii u dambeeyey. ilaahay baa subxaana wa tacaala nebi maxamed ka dhigay khaatima alambiyaai waarusul. ilaahay baa inoo sheegay nebi isaga ka dambeeya inaanu jirin. maadaama uu xaalku sidaa yahay, ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ka dhigay shareecada uu soo dhiibay nebi maxamed iyo kitaabka uu ku soo dejiyey mid dhammaystiran, dhinac kasta oo laga eego iyo si kasta oo loo dhigo. alyawma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum alislaama diina. ilaahay baa inoo sheegay subxaana wa tacaala diin dhammaystiran inuu inoo soo dejiyey. diintaasi oo qaybaha iyo dhinacyada nolosha dhinacaanay ka hadal waxa ay ku hagaagayso iyo axkaamta ay leedahay midnaba aan ka tegin. waa diin alcaqiida wa diin alcibaada wa diin alaxkaam wa diin alakhlaaqi waasuluuk. waxaa ku dhan caqiidooyinka iyo iimaaniyaadka saxda ee ilaahay subxaana wa tacaala uu waajibiyey in la aamino qalbiga lagu gunto dhammaantood. cibaadaadka ilaahay subxaana wa tacaala loogu dhowaado faral iyo sunne wax ka maqani ma jiro. ashyaadu waxay axkaam leeyihiin xalaal iyo xaaraan, wax ka dhimani ma jiro. qaabka uula dhaqmayo addoonku rabbiga subxaana wa tacaala abuuray iyo qaabka uula dhaqmayo khalaa'iqda kala duwan ee malaa'ig leh, bani aadam leh, xayawaanaad leh, waxay diintani ka tagtay haba yaraatee ma jiro. ilaahay baa inoo caddeeyey shumuuliyata hada addiin, diintani inay tahay diin dhammaystiran. nolosha qofka bani aadamkaana qodob ay ka tagtay haba yaraatee aanu jirin. qaala allahu subxaana wa tacaala fi kitaabihi alkariim: qul ina salaatii wanusukii wamaxyaaya wamamaatii lilahi rabbi alcaalamiin laa shariika lahu wabidalika umirtu wa ana awalu lmuslimiin. waxaad tidhaa nebi maxamedow iyo qof kastoo muslimowba, salaadayda, gowracayga, noloshayda iyo geeridayda ilaahay baa iska leh subxaana wa tacaala, axkaamna u yeelay. cid ilaahay la wadaagtaana ma jirto. dhammaan noloshayda oo dhan ilaahay baan subxaana wa tacaala muslim ugu ahay oo aan ugu hoggaansamaya. ilaahay baa subxaana wa tacaala tilmaamay kitaabka qur'aanka ah oo ah masdarka iyo isha koobaad ee sharaa'icda iyo axkaamta diinulislaam ay ka soo maaxday, ka soo fusho. ilaahay baa tilmaamay inuu ilaahay u soo dejiyey shay walba inuu caddeeyo. ilaahay baa sheegay arrin kasta xukumkeeda iyo xalkeedu inuu kitaabka qur-aanka ku xusan yahay, sida ugu fiicana addoomaha u danta adduun iyo aakhirabana inuu caddaynayo. qaala allahu subxaana wa tacaala: ina hada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam.
qur'aankani dadka wuxuu ku hanuuninayaa arrinta u toosnaanta badan u hagaagsan u wanaagsan u faa'iidada iyo manfacada badan mas'alo gaara lama sheegin waa fi jamiici masaa'il alxayaat arrimaha nolosha oo dhan weeye